markale waxaan wanaagsan dhammaan saaxiibada ama daawadayaasha ku xiran channelka maanta. Haddii aad nagu cusub tahay, like-tu waa inoo dhiirigelin, subscribe-na haddii aad inoo saarto waan kaga mahadcelinaynaa. Aanu gudagalno sheekada maanta oo aan doonayno inaynu ku soo qaadano mowduuca guurka. Sidaad ka warqabtaan, guurku waa waxyaabaha ugu wanaagsan ee qof bini'aadan ah uu ku dhaqaaqo. Mar waa geed harqabow oo lagu harsado, marna waa hanfi iyo dabayl iyo jiilaal lagu haraado. Hadba waa nasiibka. Haddaba kolka aad taagan tahay inaad guursato, waxaa laga maarmaan ah la tashi badan inaad geliso, ama inaad la tashato ninkaagu weyn, ninkaa garaad badan, qof kaaga horreeyay arrintan oo gaamuray, iyo talada oo loo baahan yahay in si ehelnimo ah loo gorfeeyo kolkaas oo aad qaadato go'aan la tashi leh laakiin aan keli kugu ahayn. Haddaba dadkii hore iyo abwaaniintii hore maxay ka yiraahdeen arrimaha guurka? Haddii aan lala mashaawirin tolka adiga oo maad leh oo waa lagama maarmaanay tashiga odayaal loo meerin, ninkii keligii maalootiyaa meel xun waa u halise. Oo uu kala jeedo qofkii aan la tashi wanaagsan iyo sidoo kale gorfeyn wanaagsan arrimaha guurka aan ka samayn. Abwaan kale oo arrimaha guurka isna tixdiisa suugaaneed ku falanqeynayay ayaa waxa uu yidhi: nin gablamay, nin good cunay iyo nin ay gooli la xayaaday, iyo nin uu libaax ku gooriirsaday ee garabkiisu hooseeyo, intaaba waxaa ka guul daran ninkii uu guurku ka xumaado. Abwaankaas suugaantiisu waxa ay taabatay meel fog, waxaana diiradda uu ku saaray qofka uu ka xumaado guurku, kaas oo la mid ah qof hayaankiisu uu guuldaraystay. Inkastoo calaf iyo nasiib qofba ayaan leeyahay, haddana waa lama huraan inaad geediga hayaanka aad ka fiirsato oo aadan go'aan degdeg ah oo saqiirnimaha aadan qaadan, laakiin waxaa loo baahan yahay go'aan gaamuray oo karti leh inaad qaadato. Abwaan Soomaaliyeed oo lagu magacaabi jiray Qolof Xirsi isna gabaygiisa waxa uu ku yiri, haddii aan tix yar ka soo qaadano: leeleeshanu liibaanay laasim ii tahay, weligay mid lagu liicay baan lab u iraahdaye, allahayow laciiftada maxaa igu lamaaneeyay. Waxa uu kala jeedaa gabar gayaankiisa oo uu guur iyo calaf tagay, laakiin goor dambe uu ogaaday in aysan waxba gelin, taas uu ku tilmaamayo inay tahay qof daciif ah oo aanan u qalmin isaga. Abwaan Soomaaliyeed oo ka mid ah abwaanada da'da yar oo aan nololka ogaa ee aan geeridiisa maqal oo lagu magacaabo Cabdiwaaxid Gamadeed ayaa waxaa lagu weydiiyey su'aal ahayd: ma qalanqal baa tahay horta, maxaad u guursan weyday? Kolkaas ayaa waxa uu go'aansaday in uusan hadal ku jawaabin, laakiin ay mudan tahay inuu ku jawaabo tix suugaan ah si uu u qanciyo saaxiibadii su'aashaasi adag weydiiyey. Waxa uuna yiri: ninkii kaagu weyn iyo ninkii kaa garasho dheerba, iyo geedkii tegi jiray iyo goobihii kulanka, iyo kii hortaa guursaday baa qayb la geliyaaye, oo go'aanka aad damacsan tahay lala gorfeeyaaye. Waxa uu kala jeedaa qofkii kaagu weyn, kaa garasho dheer, oo kaa cilmi badan ayaa wax la weydiiyaa ee lama noqdo dalanbaabi hadba meeshay doonta u duusho. Oo waa run, oo haddii aad sidii haadii hunguri u raadiso, hubaal waa tungooday ee armay hamaanimadaadu ayaa ka shakaroon tahay. Gabar Soomaaliyeed baa ciishootay beri inta gayaankeedii ka xumaaday ayay dhibaato dareentay. Waxa ay dareentay ninka ay calafsatay ee gayaankeeda ahaa inuu yahay mid ku xumaa ee aan u qalmin, asiidan ciishay. Kolkaasay gabay qac ka siisay, waxayna tiri: guray oo gaduudkaygii gabarnimo gubtay, geeri iyo nolol ayaan dhex taagnahay, oo nolol gaasiro ah ayaan u soo guuray. waa garasho la'aanteedii waxaa gabagabadani dhigay ee garaadka maanta aan leeyahay gabarnimadeedii haddaan lahaa gablamaye miyaan goortan halkan joogi lahaa. taa waxay daliil u tahay gabadhani hadda inay garaadsatay jaar ay caqliyeysatay oo wax waliba ay kala garatay oo cilmi badani u soo kordhay oo hadda ay tahay jaamacad laga cilmi gurto ayay waxay dareemaysaa oo ay go'aanaysaa shalay haddii ay lahaan lahayd caqliga maanta gaamuray oo ay leedahay in aysan dabinkan ku dhacdeen. laakiin waa calaf iyo nasiibe, qof waliba waxa uu marayaa wadadii uun loo qoray, laakiin muhiimaddu waxaa weeye in aad go'aankaaga uu noqdo mid casiimo leh. saaxiibayaal, janalka maanta ayaad naga daawanayseen. haddii aad nagu cusub tihiin, like-tu waa inoo dhiirigelin, subscribe-tuna waa saaxiibtinimo. mar kale intaan kulmayno waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo ammaano Allah. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.